beri waa mahadsantihiin. waa farxaddii isxilqaan waay mudan ra-iisul wasaare. bismi illaahi raxmaan raxiim. ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre, golaha wasiirada sharafta leh ee nala jooga, xubnaha baarlamaanka, golaha shacabka iyo aqalka sare ee nala jooga, dhammaan mas-uuliyiinta kale, maamulka gobolka banaadir, haweenka, bulshada rayidka, dhallinyarada, dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, siyaasiyiinta iyo bahda saxaafadda iyo ciidamadaba dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sidoo kale hobollada gobolka banaadir oo maamo shamso ay hogaaminayso. mudan ra-iisul wasaare, caawa xafladdan iyada ah ujeeddadu waxay ahayd in barnaamijkii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ku dhawaaqay isxilqaan in maamulka gobolka banaadir kaalintiisa ka qaadanayo, diyaarna u yahay, gobolka banaadirna ay shacabkeedii ay mar walba u taagan yihiin midnimada, wadajirka iyo iskaashiga ummadda soomaaliyeed. sidaas daraaddeedna aan rabno inaad mudan ra-iisul wasaare hortaada ka caddayno in shacabka soomaaliyeed meel walba uu joogo, weliba caasimadda oo ah muraayaddii dalka, hooyadii ummadda soomaaliyeed, ay diyaar u tahay barnaamijkan isaga ah sida uu yahay in loo dhaqangeliyo dhammaan xarumihii dowladda, dhammaan xarumihii dowladaha hoose iyo bulshada meelahay u baahan tahayna inaan diyaar u nahay inaan ku dhisanno si isxilqaan ah oo iskaax u qabso ah, bulshaduna ay hormuud ka tahay. intaas ka sokow, maamulka gobolka banaadir wuxuu muddoba ka shaqaynayay 7 bilood lasoo dhaafay sidii shacabka loogu adeegi lahaa, shacabka loogu dhowaan lahaa, loo daadejin lahaa adeegyada bulshada oo dhammaan degmooyinka ay howlo badan ka socdaan. sidoo kale waxaa socda barnaamijyadii dhallinyarada iyagana looga qaybgelinayey siyaasadda, lagala tashanayey sidii dalkan uga dhici lahaa doorashooyin 2020 oo aan rajaynayno in magaalada muqdisho ay tusaale u noqoto dhammaan gobollada inteeda kale. intaas ka sokow, mudane ra-iisul wasaare, waxaan kaaga mahad celinaynaa adigii golahada wasiiradaba inaad shirkiinnii aad ku yeelateen garoowe aad ku ansixiseen barnaamijkan isxilqaan, isla markaana aad doonaysaan dhammaan dalka oo dhan, gobolladoo dhan laga hirgeliyo. taasna waxaan idinkaga mahad celinaynaa. sidaas weliba guddi hoosaada u saartay oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenkaada oo isbuuc walba kulma si loo dardargeliyo barnaamijkan isaga ah, bulshaduna ay diyaar u tahay. dhacdadii dhacday isbuucyadii lasoo dhaafay mudan ra-iisul wasaare waxayna tusaysaa sida kooxaha argagixisadu ay u danaynayaan inay bulshada dib u dhigaan, inay horumarkeedii gaabiyaan, inay goobihii bulshada loogu adeegayay, goobihii cibaadada ay bartilmaameedsadaan. taas annagoo ka duulayna degmadii howlwadaag iyo degmadii hodanba waxaan aad uga mahad celinaa dhallinyarada soomaaliyeed oo issoo xilqaamay oo si hagar la'aan ah u tusay kooxaha argagixisadu inaysan marnaba dib noo dhigaynin, horumarkana naga hor istaagaynin, isla markaana ay bilaabeen barnaamijkii isxilqaan oo labada degmaba doonayno inaan si isxilqaana ku dhisno. waxaan rajaynaynaa barnaamijka xukuumadda oo faahfaahsan inaad adiga noo sheegi doontid oo barnaamijkan ku saabsan, laakiin waxaan kuu ballan qaadaynaa in shacabka gobolka banaadir mar walba uu u taagan yahay midnimada ummadda soomaaliyeed, doonayo wax kasta oo khilaaf jirana in lagu xalliyo si nabad ah. waxaan kaloo ugu baaqaynaa dhammaan gobollada inay ka qayb qaataan barnaamijkan oo muhiim u ah ummadda soomaaliyeed. intaas ka sokow, mudane ra-iisul wasaare, waxaan aad uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka baaqiisii ahaa in shirka golaha amniga qaranka uu ugu baaqay dhammaan gobollada inay ka soo qayb galaan, taasoo tusaysay madaxweynaha siduu u yahay nabadoon, u doonayo inuu xal waara uga gaaro dhammaan wax kastoo tabasho jirtana miiska wadahadallada lagu dhammeeyo, si soomaalinimona loo dhammeeyo. taasna waxaan rajaynaynaa dadka saaxiibada iyo walaalaha ah oo anigana aan kula jiro golahaas amniga inay baaqaas u dhagan uglaadaan, isla markaana wax walba aan ku xallinno si hoose oo soomaalinimo ah, si maaragtay mas-uuliyadda ku jirto, si muxuu ahaa soomaali baa iska leh oon loo baahnayn dad ajaanibuna dhex gasha. taasna waxaan rajaynayaa in ay baaqaas qaadan doonaan. intaas ka sokow, waxaan ogaan jirnay soomaalidu in aan lagu faanin ama aysan lagu ololaynin khilaaf iyo muxuu ahaa mushkilad
laakiin loo baahan yahay in lagu ololeeyo nabadda in loo ololeeyo loo istaago wadajirka iyo midnimada taasna waa mid naga go'an annaga maamulka gobolka banaadirna mid dowladda federaalka iyo xukuumadda way nooga tashanayso shacabkan dhallinyaradana waxaan ugu baaqaynaa in barnaamijkan isxilqaan ah oo aan dhaqan gelinayno in sidiisana loo dhaqan geliyo la dardargeliyo horeyna loo wado